maxaa kugu dhiirigeliyay inaad businesskan coffee shop-ka abuurto mase laga yaabaa inaad fursad kale oo ganacsi abuurto shaqada maqaayadda saan u arkay waa shaqo aad iyo aad u dhib badan qof walba ma sameyn karo dulqaad badan ay u baahan tahay dadkiina fahamtay u baahan tahay shaqo oo aad iyo aad u culus waaye sababta ay dareem karaan culayskiisa iyo wixii oo ka jiro challenge-yada badan oo ka jiro walba hadda Soomaaliya joogno waxyaabo badan ka maqan sector-ka maqaayadaha sida supplier-ka camal aad iyo aad ugu dhibaatooda wixii dibadaha ka imaanay wixii oo dadkana u baahano inay dibadaha naga soo diraan si ahaan waxa warka si shakhsi ahaan shaqada maqaayadaha maadaama waqtigan aan ku soo qaatay inaan sii wado aan iyada kamera dhaliyo aan ku sii balaarano wixii baahida badan oo hadda oo banaana jirto in lagu dabool karana misanay oo wana ay jirto yani awoodda hadda dadka waxaas ka shaqeyn karo inay jirto sida oo shikinkan oo dibadaha ka yimaada camal inay lahaato meel ay ka soo saarto waxyaabo badan oo la soo koob kareen maqaayadaha sida hadda baahadan oo bunk iyo waxaas oo maanta naga daboolen teamka Banaadir Cafe oo ayaga supplier no aad ugu mahad celinayeen waxyaabo badan ay ugu qabteen dhanka maqaayadaha aan ka qayb qaadano waxaas aan ku sii socon insha Allah